ሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። አብዛኛው እኛ ባለሙያዎቻችን እየተከታተሉ እርምጃ የሚወስዱባቸው ጊዜያት አሉ። መድረስ ካልቻለ በስተቀር እየቻለ ህጉን ጠበቅ አድርገን ያዘው ግንዛቤ በደንብ ሳናስብ ጠበቅ አድርገን ሰላሙን ምን الله عليكم ዳወዲያል ኩላንቲ ወአን ወነክሰን መልክስቲ ስከስቶን ወለከን ቃይሳን በወሐን ድና የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በየዘርፉ ያሉ ባለድርሻዎች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ጋራን ላይ ሳፈ ሶማሊያ ሐሩፍ አዲስ አበባ አሁን ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዘገባችን እናልፋለን። ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት ምዘና ውድድር በአዳማ ከተማ ተጀምሯል። የምዘና ውድድሩ مشروع ترين كأديس أبابا يدون لي أيام بقولكي بسديتن يتطبق للسوق رجبية يضرب بشد كنتي أفود نقصها السنة تشابدي صلى بالله بدونه فالله وركاسنا وحنو قدر لقي وريها يا عبد الرحمن عبد الله wadada tareenka ee Addis Ababa iyo Djibouti gaar ahaan mashruuca Addis Ababa ee Dawanle ayaa hawsha shaqadiisa waxa ay bilaaban doontaa bishan taqinta ee fooda inagu soo haysa hawshan oo ah mid tijaabo ah ayaa waxa la filayaa inay sida ugu dhaqsaha badan bisha taqinta ay u bilaabato tareenkan oo ku shaqayn doona qalabka elektriga ayaa waxa hawsha dhinaca engineeringiga ku howlan wakaalada biraha iyo injineeriyada ee dawladda federaalka Itoobiya ku-xigeenka dhinaca logistiga iyo adeegga ee wakaalada oo u warramaya wakaalada wararka ee Major Kiftum Kaytum ayaa waxa uu sheegay in 130 container oo ah qalabka lagu fulinayo hawshan tareenka ay soo gaadhay magaalada Dirdaba waxaana la dhameystiray ayuu yiri mas'uulku qabanqaabadii la xiriiray in lagu rakibo qalabka tareenka mas'uulka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu yahay mid casri ah oo ku cusub wadanka uuna yahay qalab loo baahnaa in tareenka casriga ah ee haatan laga hirgelinayo dalka lagu fuliyo waxaana uu dhinaca kale ka warramay mas'uulku in tababaro la siiyay xirfadlayaasha ku howlan shaqada tareenka casriga ah isaga oo sheegay in dhawaantan ay soo gaari doonto dalka 400 oo ah furarka dambe ee tareenka waxaana haatan la soo gabagabeeyay ayuu yiri mashruucan isku xirka rakibaadda furarka tareenka intii ugu badnayd tiknoolajiyadan cusub ee la keenay wadanka ka sokow waxaa fursado shaqo ka helay mashruucan in ka badan 234 muwaadiniin ah oo haatan ka hor aan shaqo haysanin dhinaca kale shaqaalihii hore ee shirkadda tareenka ee Itoobiya iyo Djibouti ayaa iyaguna loo soo wariyay hawsha fulinta shaqadan waxaana suurtagal noqotay in tooda u gudbiyaan dhalinta cusub ee maanta ku howlan horumarka ka socda dalka shaqaalihii hore ee tareenka Itoobiya iyo Djibouti oo u warramaya wakaalada wararka ee ayaa sheegay in aqoontooda ay u gudbinayaan dhalinta cusub waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin hawshan cusub ee haatan ay fulinayaan gabagabadii mashruucan tareenka ee Addis Ababa iyo Dawanle ayaa waxaa la dhameystiray 87% waxaana ku baxaysa mashruucani adduun dhan 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ተመልካቾቻችን ለድምጽ ጥራት ዲጋንከ ሶማሊያ ኢትዮጵያ የመጋለደ ችግችጋ ከአንበባhay 200 oo dhalinyaro oo laga soo kala qolay xaafadaha magaalada ችግችጋ isla markaasna u kactamay dhankaas iyo magaalada Soomaaliya ee deegaankaas Caanfarta iyagoo isla markaasna dhalintaas ay ka soo baran doonto magaalada Soomaaliya ee deegaankaas Caanfarta farsamada gacanta falada warkaasna waxaan u qaadan dhigayaa wariyaha Cabdiraxmaan Gaata ተመልካቾቻችን በዜናዎቻችንና በፕሮግራም si looga mardhaliyo qorshaha labaad ee kobcaya isbedelka dhaqaalaha dalkeena Itoobiya looga saarayo saboolnimada ee sanadada 2008 ilaa 2012 ee tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya isla markaana dalkeena Itoobiya uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ayaa waxa uu qorshahan yahay mid wax tar balaaran u leh bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya hadaba waxa xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ka ambabaxay 200 oo dhalinyaro ah kuwaas oo laga soo kala helay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga iyagoo markaas ay u tagi doonaan dhalinyaradani dawlad deegaanka Caanfarta caasimadiisa Samaara sidii ay u soo baran lahaayeen xirfadaha dhanka farsamada gacanta qorshahan uu yahay mid laga helay wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer federaal kadibna loo soo dhaadhiciyay heer deegaan iyadoo qorshahan heer deegaanna xulista iyo uga faa'iideynta dhalintanba ay si wada jir isaga kaashadeen xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer deegaan iyo sidoo kale xafiiska maayarka maamulka magaalada Jigjiga waxaana dhalinyaradani intii ayna ka ambabixin xaruntani deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga kulan la mas'uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga iyo xubno ka socday xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer deegaan iyadoo duruucda kulankan ay ahayd mid dhalinyaradani lagu la dardaarmayay maadaama ay u tagi doonaan dhalinyaro kale oo ka kala yimid deegaanada dalka Itoobiya isla markaana ay u ilaalin lahaayeen anshaxa sidoo kalena ay guulo uga keeni lahaayeen dhanka waxbarashada waxaana halkaasi kula hadlay dhalinyaradani kusimaha xafiiska caafimaadka ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Bedel Sheekh Maxamed oo ugu horeyntii ka warbixiyay duruucda kulankan sidoo kalena ku booriyay dhalinyaradani sidii ay u ilaalin lahaayeen anshaxa uguna dadaali lahaayeen kamira dhalinta fursadahan waxbarasho ee la siiyay saaka waxaan sugu nimidnay waa suguutiskii dhalinyaradii
kala duwaneed ee qabalayowga maamulka magaalada Jigjiga laga soo kala xulay kuwaasoo la geyn doono Samara si ay xirfado kala duwan ay halka ugu soo bartaan isla markaana noloshooda ay wax uga bedelaan marka iyadoo xukuumaddu ka duuleyso qorshayaasha u yaala ee lagu horumarinayo dhalinyarta ayaa xafiiska heer deegaan ee arrimaha bulshada wuxuu soo diyaariyay qorshahan laga qayb gelinayo ama ay sugu imaanayaan dhammaan dhalinyarada deegaanadu marka deegaankeenuna qaybtii aan ku lahayn inaan aan ka qayb galno isla markaana dhalinyarteenu xirfado badan oo kala duwan ay soo bartaan deegaankii ku soo laabtaan noloshooda ay wax ka bedelaan iyo nolosha mataqaanaa deegaankaba horumarka deegaanka ka socdana ay ka qayb qaataan haddaba dhallinyaradani u ambabaxay dowlad deegaanka canfarta caasimadiisa Samaara ayaa waxyaabaha ay halkaasi ku soo baran doonaan waxaa ka mid ah barashada farsamada gaadiidka ee sida darawalnimada iyo makaanikalka qurxinta dumarka alxanka faaradda qaabka loo maareeyo hoteelada laydhka iyo xirfado kala duwan oo dhanka farsamada gacanta ah gabagabadii kulankan ayaa waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dhallinyaradani laga soo kala xulay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ee iyagu markaasi u ambabaxay dowlad deegaanka canfarta caasimadiisa Samaara waxa ayna tilmaamayaan sida uu yahay dareenkooda farxadeed aad baan u faraxsanahay because of waxaan ku faraxsanahay Chinese aan hore u heli jirin dhalinyarta dowladda deegaanku yaan maanta helay waxaan ku baxaynaa 200 oo qof oo dhalinyaro dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhalatay maamulka magaalada laga soo kala xulay maamulka magaalooyinka Jigjiga run ahaantii horta dareenkaygu maanta macnaheedu waxaan ku qiyaasaa farxad ma soo halkan kuma soo koobi karo meeshaan tagi doono run ahaantii waxaan tagaynaa Canfar kilil baan tagaynaa waxaan rajaynaynaa inaan horta kililkeena marka koobaad aan guul u soo hoyno la yiraahdo dhalinyartiis dowladda deegaanka Soomaalida ka timiday saasay ahaayeen lagu faano dhalinyaro lagu faano akhlaaq la nimaadno run ahaantii waxbarashadana iyada maxaan raday inaan halkeega wax kastiba saarno baan diyaar u nahay waxaan ku kalsoonahay 100% dhalinyarta dowladda deegaanka Soomaalida maanta ka tagaysa baan ku kalsoonahay in ay shuruudahan maanta ay buuxinayaan waana ballanqaad aan ballan qaadayno taasi weeyaan run ahaantii waxyaalahan soo baran doono hadda rag iyo dumar kale way siman yihiin waxaan soo baranaynaa injineernimo water darawalnimo waxyaalo badan management farsamada gacanta kala duwan ma soo baranaa haddaan haween ahaan nahayna waxaan leeyahay meel kasta ay wiilashaanadu galaan waan galaynaa waan baranaynaa wax kastiba waan baranaynaa marka guul weyn ma rajaynaynaa shir ay iskugu yimaadeen qurba joogta deegaanka Oromiya oo dhan 3,000 oo qof oo degan wadamada dibadda ayaa maanta si rasmi ah kulan uga furmay qolka shirarka ee Midowga Afrika ee xarunta Addis Ababa waxaana khudbad halkaasi ka furay Ra'iisul Wasaare Hela Maryam Desalegn faalada warkaasi iyo wariyaha iyaga Hodan Mahadnaan Talowno shir ku saabsan kaalinta qurba joogta muwaadiniinta Itoobiya ee deegaanka Oromiya ayaa maanta shir uga furmay hoolka shirka ee Midowga Afrika shirkan ayaa waxa lagaga wada xaajoonayay muwaadiniinta reer Itoobiya ee ku dhaqan wadamada dibadda kaalinta iyo qaybta ay ku leeyihiin horumarka ka socda dalka gudihiisa shirkan waxa khudbad ka furay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya Mudane Hela Maryam Desalegn waxa uu sheegay in khudbadiisu ay u baahan tahay muwaadiniinta reer Itoobiya ee degan wadamada shisheeyaha fursado kala duwan oo suurtagal uga dhigaya in ay ka qayb qaataan horumarka ka socda wadanka wuxuuna carabku ku dhuftay Ra'iisul Wasaaruhu in aynan ka maqnaan doonin taageerada dowladda qurba joogta ka qaybgali doonta horumarka dalka waxaana socda haatan toddobaadka qurba joogta waana qurba joogtii ugu horeysay ee deegaanka Oromiya xuskan qurba joogta ee Oromiya waa mid xoojinaya oo ku aadan dib u curashada wadanka xuskan waxaa ka qaybgalaya 3,000 oo qof oo qurba joog ah oo wadamada dibadda degan oo u dhashay deegaanka Oromiya kaalinta qurba joogtu waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa horumarka wadanka ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kadib markii ay soo afjareen ururada nabaddiidka dhigicabka ee u isla markaasna ay meel saareen nabadgelyada deegaanka ayaa waxay haatan ka qayb qaadanayaan horumarada kala duwan ee deegaanka ka socda isla markaasna kooxda naadiga kubadda cagta ee booliska gaarka ah ay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaareen kooxaha kale ee deegaanka faalada warkaasna waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaha iyaga wariye Maxamed Xasan Cabdullaahi
ciidanka booliska gaarka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kadib markii ay soo afjareen haraaga nabadiidka Ubbo isla markaana ay meel saareen nabadgelyada deegaanka ayaa haatan waxa ay ku howlan yihiin ka qayb qaadashada horumarka dhinacyada badan taabanaya waqti xaadirkan ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba naadiga kubadda cagta ee ciidanka gaarka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhawaan la aasaasay ayaa waxa ay sii wataan gulaha ay ka soo hoynayaan ciyaaraha saaxiibtinimo ee ay la yeelanayaan kooxaha kale kubadda cagta deegaanka ka jira waxaana kulan saaxiibtinimo uu ku dhaxmaray garoonka kubadda cagta ee dugsiga tababarka koonfur bari Itoobiya ee Kifildoorka 38 kooxda kubadda cagta ee dugsiga tababarka koonfur bari Itoobiya ee Kifildoorka 38 iyo kooxda kubadda cagta ee ciidanka booliska gaarka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ciyaartan saaxiibtinimo oo qayb ka ah kulamada saaxiibtinimo ee kooxahana ay yeelanayaan iyo diyaar garowga kulamada xiga ayaa bilowgii ciyaartan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda labada dhinac ciyaartan ayaa bilowgeedii labada kooxoodba waxa ay ku soo galeen garoonka shax dhameystiran oo taam ah waxayna labada kooxood soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan oo ay ku doonaysay koox waliba inay ku keensato gool waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay barbaro gool la'aan ah kadib markii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa naadiga kubadda cagta ciidanka gaarka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya waxay garoonka ku soo galeen dardar xoogan oo ay ku doonayeen in ay kula wareegaan hoggaanka ciyaarta waxaana u suurta gashay in ay keensadaan 3 gool oo degdeg ah waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayaa waxa ay guusha 3 gool eber ku raacday kooxda kubadda cagta ee ciidanka booliska gaarka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waana kuban qaar kamid ah xubnihii ka soo qayb galay oo aynu wareysi la yeelanay ciyaartaas oo ugu talagalnay inay ku diyaar garoobaan maadaama ciyaarihii club championka Itoobiya oo ka dhici doona naas ee magaalada caasimadda Jigjiga ciyaartaas ay ugu sii diyaar garoobeen labada kooxood ay ku jiraan inay tartan ka qayb galaan ciyaartaas oo loogu talagalay ciyaar saaxiibtinimo ah labada kooxood aad u wanaagsan marka waa ciyaar saaxiibtinimo oo la ciyaarayno ciyaarahan ma garanaysaa kooxaha deegaanka saan hore soo sheegay kooxdana waxay ka tirsan waxa weeyaan kooxdan sideedaba macnaha waa kooxda ciidanka booliska gaarka waa ciidankii shacabka waa kabihii shacabka kooxdiisana waxaan ugu talagalay xiriirka ciidanka iyo shacabka inuu macnaha xoojiso oo isdhexgalka bulshada iyo ciidanka booliska gaarka ciidanku maadaama ciidan markii horena shacabka ka soo dhaxbahay yahay haddana shacabka u adeegaya horumarkiisii iyo nabadgelyadiisina macnaha u adeegaya inuu haddana ka qayb qaato isdhexgalkii bulshada waxaa sidoo kale aynu wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo taageerayaasha ka soo qayb galay tartankan wax kasta waxa keenay waa farxadda iyo nabadda weeye waxa weeye maanta maadaama ay nabad jirto waxa weeye macnaha waxa weeye ciidankii shir ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha degmada Ararso isla markaasina ay ujeedadiisu ahayd qiimeynta shaqaalaha ee dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo waliba maamulka suuban ayaa lagu qabtay isla degmadaas Ararso ee gobolkaasi Jarar falada warkaasi iyo wakaalada warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aanu talawno shirkan oo ah shir heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa uu ka dhacay degmada Ararso ee gobolka Jarar waxaana ka soo qayb galay dhammaan shaqaalaha xafiisyada degmada Ararso qaybahooda kala duwan iyadoo oo shirkani uu ahaa mid lagu qiimeynayo shaqaalahani ayaa haddaba wuxuu ku saabsanaa dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo howlaha shaqo ee ka soo qabteen shaqaalahani qorshihii kobaca dhaqaale ee GTB1ka waxaana haddaba qiimeyntani shaqaalaha xafiisyada degmada Ararso ay tahay ujeedadeedu sidii ay wax ooga baran lahaayeen oogana qaadan lahaayeen aragtiyo midaysan si loo soxo daldaloolooyinkii ka jiray adeegyada kala duwan ee dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee qorshaha kobaca dhaqaale ee GTB1ka iyadoo oo sidoo kalena ay ooga midho dhalin lahaayeen isbeddelka qorshaha labaad ee kobaca dhaqaale ee GTB2ga waxaa furitaankii shirkaasi ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha degmada Ararso mudane Asad Axmed ayaa waxaa inoo bilaabanaya qiimeyntii shaqaalaha dawladda ee degmada Ararso qiimeyntan waxaa horey loo soo mariyey ama horey loogu soo qiimeeyey sidan oo kale hogaaminta degmooyinka waxaana maxaan ku rahdaa qorshaysnayd in loo dhaadhiciyo qiimeynta heer degmo ilaa heer qabale waxaan nahay markaa maanta aan wadnaa waa tallaabadii labaad ama steebkii labaad oo ah qiimeynta shaqaalaha heer degmo
sidoo kale dhinacooda waxaa qiimeyntani ka soo jeediyey guud ahaan ujeedada shirkani madaxa arrimaha xisbiga ee degmada Araarso mudane Cabdi Jawhar Cabdi iyo madaxa arrimaha siyaasadda ee degmada Araarso mudane Mukhtaar Xasan isku soo wada duubo qiimeyntani loo qabtay dhammaan shaqaalaha xafiisyada degmada Araarso qaybahooda kala duwan waxa uu qayb ka yahay qorshayaasha ay xukuumadda iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ay ku doonayso sidii ay bulshada ugu xaqabtiri lahayd dhammaan adeegyada bulshada ee 5 sano ee soo socota. Axmed Faarax Geed, telefishinka caalamiga ee ESTV, degmada Araarso ee gobolka Jarar. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkan ka helay dhinaca deegaanka iyo dalka. wararkan idinka hayno dhanka dibaddana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku tagay magaalada Qaahira ee waddankaasi Masar. falada warkaasi iyo wariyahayaga Ikraan Maxamed inaanu talowno. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku tagay magaalada Qaahira ee waddanka Masar wuxuuna la kulmay oo uu wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Masar Sami Shukri waxayna ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya labada waddan iyo sidii dardar cusub loo gelin lahaa loona xoojin lahaa arrimaha dhinaca siyaasadda ee labada waddan u dhaxeeya waxayna ka wada xaajoodeen labada wasiir arrimaha la xiriira nabadgelyada iyo iskaashiga militariga ee labada waddan. waxay isla soo qaadeen labada wasiir kaalmadii militariga ahayd ee hadda ka hor uu siin jiray Mareykanku dalka Masar. waxa uuna wasiirku shaaca ka qaaday in Mareykanku uu siin doono dalka Masar diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo qalabka lagu ilaaliyo dhaqdhaqaaqa dhinaca suudimaha. arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii kooxaha argagixisada ay weeraro ku soo oogeen lama degaanka Sanay. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu maanta socdaalkiisu ku wajahan yahay magaalada Dooxa ee xarunta u ah waddanka Qatar. wuxuuna la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Khaliij waxayna ka wada hadli doonaan xaaladda nabadgelyada ee bariga dhexe. golaha baarlamaanka ee waddanka Chad ayaa ansixiyay in xukun dil ah lagu fuliyo cidda ay ku cadaato in uu fal argagixiso ah geystay. falada warkaasi iyo wariyahayaga Ugbad Cabdullaahi inaanu talowno. baarlamaanka waddanka Chad shir uu isugu yimid waxa uu ka falanqeeyay arrimo la xiriira